Bismillahi Raxmaani Raxiim. Waxaan bilaabaneynaa cashirkeenii 15aad. Waxaan soo qaadanay 14 cashir ayaan soo qaadanay. Cashirkaana wuxuu daba socdaa cashirkii hore ayuu daba socdaa. Cashiradan aan qaadanayna waxaan nahay totally free waaye. Qof walbo afka Soomaaliga ku hadlayo wuu furan yahay, waxna wuu ka baran karaa. Waxaan kaloo diyaarinay buug ayaan diyaarinay. Buuggaas qofkii rabo iga soo codsan karaa. Muqdisho meel aala meeshuu ka joogo ayaa loogu geenayaa. Waana $6 iyo bar. Lambarkeena shaashada ku qoran YouTube-ka iyo TikTok aan ku leenahay. Boggeena aan ku leenahay TikTok-ga iyo YouTube-ka xirfad computers and technology ayuu booqan karaa. Meeshaas ayuu naga heli karaa. Marka haddii cashirkeena aan bilaabano waxaan soo qaadanay waxaan dhahnay Office-ka waa package dhan oo isku jira oo Microsoft Word-kii uu ku jiro, Excel-kii, PowerPoint-kii wax dhan ay ku jiraan waayaan dhahnay. Marka isbuuci hore waan galnay aniga automatically ayaan ugu jiray. Marka hadda waxaan rabaa inaan idinka tuso aan tuso sida loo galo ayaan tusayaa. Marka meeshan Google-ka ayaa waxaad ku qoraysaa Office. Marka Microsoft waxay ka dhigtay online ayay ka dhigtay. Waagi hore software ahaan ayaa loo soo gadan jiray, computer lagu shubi jiray kadib ayaa la isticmaali jiray. Laakiin hadda online ayay ka dhigeen, cloud-ka ayaa la dhigay. Cloud-ka ayaa marka aad ka isticmaali kartaa username and password-ka aad ku leedahay Microsoft Office-ka Microsoft account-ka aad leedahay, Hotmail ha ahaado, Outlook ha ahaado, Live ha ahaado, kulli waa ku geli kartaa. Gmail laakiin kuma geli kartid oo Microsoft maaragtay laguma isticmaalo Gmail. So marka waxaad ku qoraysaa markaad ku qorto Office 365 markaad qorto ka page-kan ayuu ku furayaa. Marka page-kan ayaa rabaa inaad tagtid Microsoft 365 login-ka inaad click siisid waaye. Markaad tagto wuxuu ku weydiinayaa username and password-ka oo aad leedahay ayuu ku weydiinayaa. Marka waxaan sameynaynaa sign in ayaan leenahay. meeshaas madaxa ku qoran yahay qofka madaxiisa camal ayaad sign in leedahay. Kadib waxaad leedahay marka emailkayga waa kana marka mohammed.hash1@outlook.com ayaad click siiyey. Waxaan dhahay next ayaa leedahay. Password-ka ayuu geenayaa marka. Password-ka geli ayuu leeyahay. Marka adiga password-ka ayaa gelinaysaa. Emailkaaga markaa geliso meeshan Outlook-ga Outlook ayuu u yahay. Waxa laga yaabaa Hotmail inuu ku yahay oo kale ama Live inuu ku yahay oo kale. Marka midka aad tahay ama Outlook hadduu yahay ama Hotmail hadduu yahay waa inaad gelisaa. Kadib waxaad qoraysaa password-kaaga. waxaad leedahay sign in ayaa leedahay. don't show waxaan leeyahay okay no ayaan leeyahay. Marka page-ka wuxuu geenayaa Office ayuu geenayaa. Office-ka marka waxaa ku jiro package-kii dhan ayaa ku jiro, Word-kii maaragtay muxuu ahaa Excel-kii iyo PowerPoint-kii. So marka ana hadda waana free waxaa ku ah 5 GB. More than 5 GB haddaad isticmaasho wax ka badan waxa waaye lacag waaye. Laakiin 5 GB ayaa free ah. Boqolkiiba 40 ayaan isticmaalay. 2 GB ayaan isticmaalay usage-kayga of 5 GB. 5 ayaan haystay marka 2 ayaan isticmaalay. So marka waa kana Word-ka waa kana presentation-ka waa kana PowerPoint-kii, Excel-kii, form-kii iyo macallimiinta imtixaanka form-kii ku diyaarinayeen iyo waa kana. Marka Word-ka haddaan furno oo kale, Word-ka ayaan furanaynaa. Microsoft Word-ka ayaan furaynaa. Hadda waxaan markaa rabtid inaad wax qortid documenti qofka markuu rabo assignment qofka inuu diyaariyo kale meesha uu ku qoranayo waa Microsoft Word-ka waaye. Word-ka ayaa u baahan tahay inaad maaragtay isticmaasho. Marka saan ayuu kugu furayaa. So marka haddaad rabtid inaad wax ku qorto oo kale documenti inaad diyaartid CV-gaaga haddaad rabtid inaad qortid oo kale qofka markaa rabtid shaqo doon uu yahay oo shaqo uu diraayo kale xaguu wax ku qoraa CV-giisa. CV-giisa intuu ku qorayaa magaciisa ayuu ku qorayaa maaragtay asaga soo iska hadlaya ayuu ku qorayaa skills-kiisa qualification-ka waxa uu haysto ayuu ku qorayaa. So markaas ayuu CV-ga diraa. CV-ga marka waa asna waxa waaye waa baab kale waaye. Laakiin xagee lagu qoraa CV-ga iyo assignment-yadii iyo casharadii maaragtay laga rabay wax dhan halkan baa ku diyaarinaysaa. So marka waxaan qoraynaa oo kale mawduuca rabtaa inaad qorto oo kale dhexda ayaa geysanaysaa oo kale space-ka inta taabato waxaa leedahay test ayaa ku qoranaysaa. haddaad rabtid capital inaad ka dhigtid capital ayaa ka dhiganaysaa. test ayaa leedahay test. farta haddaad rabtid inaad weydiisato isaga highlight ka dhig. waxaa leedahay bold iga dhig.
hadaa rabtid weyney 12 meesha ka tahay waxaa ka dhigaysaa 16 iga dhig hadaa dhahdid wuu weynaanaya ujeedaa. hadaa rabtid in hoos aad titleka ka xariiqdo kale waxaa sameynaysaa udas ayaa taabanaysaa hoosta ayuu kaaga xariiqaya. So marka taas waa baab gole oo maaragta lagu barto Microsoft Wordka, laakiin hadda anaga waxaan rabnaa Microsoft si loo heli karaa. waxaa leedahay markaas rabtid inaad save garaysid oo kale online-ka ayaa ku save garaysanaysaa, OneDrive-kaaga ayaa gashanaysaa. So marka waxaa leedahay copy, create copy ayaa leedahay, ama inaad download garaysatid ama copy waxaa leedahay create copy online ayaa leedahay. markaa dhahdid wuxuu ku leeyahay magac u bixi uu leeyahay CV ayaan dhihi karnaa, kadib waxaan leenahay create copy. markuu ku koobiyanayo marka wuxuu ku gelin OneDrive-kaaga ayuu ku dhigayaa, hadhowda markaa u baahatid ayuu maaragtay waa isticmaali kartaa. marka saas ayaa maaragtay loo isticmaalaa Wordka. waxaa kaloo rabtaa hadaa rabtid PowerPoint oo kale saas oo kale hadaa rabtid inaad furtid oo kale PowerPoint hadaa rabtid presentation inaad diyaarisid oo kale, warbixin inaad diyaarisid oo kale hadaa rabtid meesha lagu qorto slide-ka oo kale marka inaad kala bedeshid aad rabtid oo kale, mawduuc markaa rabtid inaad ka hesho mawduuc kale aad u gudbisid oo kale waa samaysan kartaa. isagana waa presentation-kii waaye. waxaa kaloo isticmaali kartaa Excel-kii oo kale, xisaabaadkii meeshii lagu xiraayay oo lagu maaragtay lagu calculate garaynayay la isugu dardarayay, ama biilashii iyo wixii dhan meesha markuu rabo qof inuu wax ku qorto oo kale waa kana asana Excel-ka ayaa la isticmaalaa. wuu noo furayaa asagana is loading ayuu sameynayaa maadaama 2 pages hore ay furnaayeen. waa kana marka asagana maaragtay muxuu ahaa Excel-kina waa kana oo marka xisaabaadkii iyo timetable hadaa rabtid inaad samaysatid oo kale meesha laga sameeyo waa halkan. asagana waa mawduuc kale oo maaragtay baab kale oo la isticmaalo waaye. marka rabtid wax ku qorto oo kale asana file ayaa leedahay, save ayaa leedahay, sidii kii camal ayaa loo isticmaalaa. so marka waa package dhan waaye Office-ka Microsoft Office. waxaa ku dhex jira Word-kii, Excel-kii, presentation-kii, PowerPoint-kii, waxaa waaye online ayaa laga dhigay. qofkii rabo online-ka ayuu ka isticmaali karaa. 5 GB oo free ayaa haysataa, wixii ka badan anima u maleynayay intaas ka badan ayagana targetkooda waxaa waaye kambaniyada waaweyn Microsoft lacag badan ka sameeyaan, laakiin dadka 5 GB iyo wax ka yar isticmaalayo free ayuu u yahay. marka maanta waxaan qaadanay oo cashirkii hore daba socday wuxuu Microsoft Office-ka ayaan qaadanay, package-ka dhan ayaan qaadanay oo Word-kii iyo Excel-kii iyo waxaas ay ku jireen. marka waxaa kaloo oon qaadanay cashirkii hore oo aan qaadanay wuxuu ahaa hadaan ku noqono kale hadaan ku noqono cashirkii aan qoray oo diyaariyey aan rabaa inaan fiiriyo oo wuxuu ku saabsanaa operating system-kii iyo wixii aan soo qaadanay. kanna ma ahayn cashirkii aan qaadanaynay oo ahaa muxuu ahaa meel baan ku save gareeyey. wuxuu ahaa cashirkii Windows Edition-kii aan qaadano oo aan dhahnay Windows Edition aan soo qaadano oo waxaan dhahnay Windows-ka wuxuu usii qaybsamaa edition-ka wuxuu ahaa home wuxuu ahaa iyo starter iyo wuxuu ahaa pro iyo enterprise oo kambaniyada waaweyn ay isticmaalaan, caalamka laga isticmaalo aan dhahnay, oo marketka adduunka hadda ay isticmaalaan. muxuu ahaa as a business marka la isticmaalayo pro-ga iyo waxay isticmaalaan enterprise-ka ayaan dhahnay. so marka siin ku ogaanaya marka computerkeyga in enterprise aan isticmaalayo, pro home inaan isticmaalayo siin ku ogaan karaa. waxaad tegeysaa hadda Windows 10 ayaa iigu jiro, waxaa furanaysaa file explorer ayaa furaysaa, kadib waxaa sameynaysaa right click ayaa waxaa leedahay this PC ayaa right click ku sameynaysaa, properties-ka ayaa tegeysaa. kan ayaa furay, kadib waxaan sameeyey markaa kan furay waxaan sameeyey right click ayaa waxaan ku sameeyey kan properties-ka ayaan tegey. page-ka waxaa i furmaayo oo setting-ska ayaa i furmaayo oo qaybta meesha aan ka arki lahayn waa kana. details badan ayuuna siinayaa. processor-keena wuxuu yahay ujeedaa, processor-keena wuxuu yahay CPU-ga, RAM-keena oo installed RAM ku jiro waa 4 GB. marka waxaan u socda waxay tahay edition-ka. aniga edition-ka igu jiro Windows-keyga maxaa waaye, hadda isla fiiri edition-keyga maxaa waaye, casharkii hore fiiri ku noqo casharkii hore aan sharaxayay oo kankii ka horreeyay oo 14aad ku noqo
edishinadan kaga hadlayay. So marka edishinka muxuu yahay waa kana, waa home waa mujeda Windows 10 home ay ugu jiro, waa home user ayaan ahay hadda aniga. laakiin company weyn hadda u shaqey lahay proga iyo enterprise-ka iyo waa ka qaalisnaan lahaa. Hadda keyga waa ka raqiisan yahay proga, computerkan hadda aniga aan haysto wuu ka raqiisan yahay midka proga uu ku jiro. macnaha proga waxaa loo as a business ayaa loo isticmaalaa. So marka qaabkee edishinka ku ogaa kartaa inaad maaragtay file explorer furto, this PC right click inaad ku sameyso, purpose-ka aad tagto, kadib aad ogaato edishinka iyo RAM-ka iyo ku jiro computerka iyo waxaas oo dhan. saas ayaa loo ogaadaa. Marka cashirkan intaas ayaan kusoo koobaynaa. والسلام عليكم ورحمة الله